يلا مقالة مينيابوليس اسقويسكا سيدر iyo Lake Street akhyaarta jacayl inay kafeeyada cabaan ama ku socialize gareeyaan ama ku kulmaan ama wax ku akhristaanba waxa way kafee weyn oo caalami ah oo noocyada kafeeyada dhan lagu sameeyo espresso-da noocyada dhan iyo cabitaanka qabow oo dhan waxaan kala haynaa casriye sida sambuusaha xalwada macmacaanka oo dhan marka waxaan dhiilayn dhammaan daawadayaasha wixii area-dan ku nool ee soo gaari kara inay noo yimaadaan soo booqdaan nala arkaan kafeegan ayna waqtigooda maaragtay xilliyada firaaqada kuwa xaqsanaan wax ku aqsan kuwa saaxiibadooda la sheekaysanaya ama socialize gareynayana ay noo yimaadaan oo ay nala fiis gareeyaan kafeega waxaa kaloo ku yaala businessyo kala badan oo sida grocery weyn restaurant ku yaala oo Old Buffalo isna xagga dambe ku yaala marka waxaas oo dhan waa wada business hal business oo weyn oo isla socda marka dhammaan dadweynaha daawanaya dhalinyarada dadka daawanaya dhan waxaan jecelnahay inay yimaadaan kafeegan oo nala arkaan oo na soo booqdaan oo waahumnaa waxaan guarantii garaynaynaa product ama alaab aad u fiican cabitaano aad u wacan oo quality-gooda fiican tahay si fiican dad professionalna ay sameeyaan iyo service aad u fiican oo aanu siinayno macaamiisha noo timaada haddii aan leedno aad baa umahadsantihiin daawashadiina السلام عليكم مقعي وحالي سلمى halkan baan imaadaa is after school sometimes cafe ba kacaba wax baan ku akhristaa internet wireless badayin cafe fiican bay gadaan waa quiet place aad baan mahadsan yihiin maadaama meesha noo furan waxaana dhihi lahaa ka faa'iidaysta fursadda aad haysatiin waa meel fiican oo si fiican wax lagu akhrisan karo ka faa'iidaysta fursadda haysatiin mar labaad mahadsantihiin ku jeclaanay meel oo cusub ay tahay aad iyo aad u qurux badan meel oo aad iyo aad u nidaameysan soo cuntooda waan ka helnaa kafeegiisana waan ka helnaa soo waxaan ula tashan lahaa dhalinyarada Soomaaliyeedna badigooda waa inay imaadaan meeshaan soo arkaan so still we represent for Xamarweyne maanta waxaan joognaa City Market oo ah market cusub oo Lake Street iyo sida halkay ka jiraan laga sameeyay waxaan filayaa dadka Soomaaliyeed na daawanaya inay yimaadaan ka adeegtaan marka City Market City Market baa la yiraahdaa waa makhaayad aad iyo aad convenience igu ah waxa weeyaan meel yacniga dadka dhalinyarada maaragtay ku nastaan markay shaqooyin ka soo baxaan waxa weeyaan makhaayad yacniga aad iyo aad ku tixgelinaysa nadaafadeeda iyo sida ay ku service gareynayaan kolley waxyaabo fara badan oo kafeeshoobiyadu Soomaalidu ay leeyihiin baa jirta oo caado ah laakiin aan cafe shopkan ilaa hadda ku arkin oo ah yacniga in maaragtay qofka de customer service-ka ee ku imanaya maaragtay uu ka service garanaya uu ku yiraahdo yacniga ugu soo noqdo ku yiraahdo maxaad kala u baahan tahay yacniga appreciation fara badan baa ka jirta so sida shopkan waxa u badan Chanori halis da kayo
maaragtay grocery isagana caalami ah marka kulay intaan aan tagayay coffee shops waxaan oran karaa coffee shop kani wuxuu u dhigmaa ama la qiimo yahay Starbucks iyo Caribou Dam Brothers kuwaas oo dhammaan la mid yahay markaad u compare garayso coffee shop-yada kale uu degan yahay waa quiet ardaydu badanaa waxay yiraahdaan New City Market Cafe baanu tagaynaa waa meel quiet oo wax lagu akhrisan karo marka asxaabtana ku kulantaa meeshan waa meel quiet marka saa baan u jeclaaday inay maadahan I'm chilling out. Meeshani waxay ka mid tahay meelaha ugu muhiimsan ee aan tago markaan shaqada ka soo rawaxo. City Market waa meel cusub. Waxaad ka heli kartaa cunno, waxyaabaha macmacaanka ah, cabitaan nooc doona ha ahaado qabow iyo kuleyl. Waxay leedahay masaajid, waxay leedahay grocery aad u baahato inaad waxyaabo yar iibsato. Xawlaad baa ku taal. Parking fiican bay leedahay waa meel very convenient ah marka waqti badan waan ku qaataa dadka qaarkood markaan la ballamayna waan kula ballamaa dhammaan dhalinyarada asxaabtan ahaan halkan ayaa this is our favorite spot marka waxaan kula talinayaa dhammaan dhalinyarada magaalada degan inay waqtigooda muhiimka ah siiyaan City Market inay yimaadaan sidaa nabadgelyo I would like to present to you guys the City Market, which is a market, a cafe, and a lunch restaurant. And I was introduced to this market a month ago when Ramadan actually started, and they actually provide food for us for the Normandale group, for the Normandale Community College, and they organized and provide different type of food for us, and we're really glad that we're glad that we made connection with them because they made everything easy for us. And as for the President Bashir, I speak on his behalf because without them, Ramadan wouldn't be as much fun and easy as possible. So they made everything possible for us. So we would like to thank them and we would like to welcome you guys to the City Market. And I hope you guys enjoy your experience here. I know we have as a Normandale group, and enjoy the experience. Thank you. waxaan u baahan inaan ka helo meesha ma meel aad u rabsho badan meel buuq badan ma aha waa meel shaqaaleeda markaad waxaad uga baahan tahay markiiba dhaqso kugu siinayaan oo aadan waqti fara badan aadan ku qaadanaynin haddii aad shaqo ku cararayso iyo haddii aad meel kale aad aadayso qof walbana dee kulley indhaha markhaati ah qof walbana hadduu meesha yimaado waxaan aniga sheegay marka sidan aniga habiga ugu ahay meesha